السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سoo dhawaada mar kale dabka FX iyo weekly mataqaana analyse-keeni ama weekly forecast-keeni. Wiigii hore suuqa dhaban uu mataqaana u saadaalinay inuu suuqa inuu dhow dhinaca aadi doono. Waan isla eegi doonaa wiigii hore maxaa ka hirgalay iyo wiigan maxaanu qorsheynaa labadaba waan isla eegi doonaa insha Allah. Marka ugu horeysa horta aan kaga soo bilowno xagga mataqaana news-ka iyo fundamental-ka maxaa la sugayaa insha Allah. Wiigan sidii wiigii hore baan u sheegnay. Wiigii hore waxaan hore u sheegnay inuu noqon doono wiig caajisa. Actually way dhacday inuu wiigkaas wiig caajis ahaa. Laakiin wiigan waxaad moodaa wiig shidan mataqaanaa suuqa aad moodo in mataqaanaa xogaa uu isbedel fiican ka dhici doono uu eeg yahay. Marka haddana kaga soo bilowno insha Allah bismillah isniinta. Isniinta maxaa la filaya horta inay dhacaan isniinta. Marka waxa dollarka horta badanaa waxaan focus gareynaa xagga dollarka. Dollarka wax war oo kasoo baxaya oo mataqaanaa red folder ma jiro. Sidoo kale salaasada wax wari ma jiro. Arbacada AUD-ga iyo CAD-ka bay kasoo bixi doonaan. AUD-ga CPI-ga iyo mataqaanaa CAD-ka uu kasoo bixi doono rate statementskii ama mataqaanaa interest rate-kii. Wiiga wax moodaa inay interest rates aad u badan yihiin oo lacaga inta ugu badan wiiga lagu mashquulsan yahay xagga interest rate-ka. Inta ugu badan interest rate-ka baa wiigan aad looga wada hadli doonaa. Marka haddaba arbacada uu warka ugu horeeya ee dollarka kasoo baxaya ee saameyntiisa wataa soo bixi doona 9:15 fiidnimo. 9:15 fiidnimo waxaa soo bixi doona federal fund rate-kii. FOMC statement-kii baa soo bixi doona insha Allah. Waa warar mataqaanaa FOMC-giya waa warar xasaasiya. Warar aad iyo aad iyo aad u xasaasiya baa soo bixi doona. Marka kuwan u baahannahay inay wiigan mataqaanaa si fiican ay u dhaqaajiyaan. Wiigii hore wiig aad isaga tacbaana buu ahaa. Dhankan haddaan eegno JPY-da waxaa kasoo bixi doona warar tentative ah. Tentative-kuna waxa weeyaan warar maalinka oo dhan jiri kara. Maalinka oo dhan intaa uu suuqu furay 24 hours-kaas waa wax anytime la filan karo xilligu doono soo bixi kara. Marka iyaguna inta ugu badan waxay ka hadlayaan wararka kasoo bixi doona rate-ka. Badanaa xagga rate-ka baa wiigan aad loo focus gareyn doona dhammaan lacagaha oo dhan marka loo eego. GBP iyo GPY-da soo kalena GDP-gii baa isna soo bixi doona dollarka kasoo bixi doona Khamiista. Isna waa tentative oo xilligu soo bixi doona lama garan doono. Waxaaba laga yaabaa in laga saari karaba haddii la doono sidii horeba u dhacday looga saaray mataqaanaa looga saaray NFP-gaba looga saaray maalinkii dhaweytoole kana looga saaro waa wax dhici karaya. Wax soo bixi inay soo bixi kartana waa wax dhici kara. Marka waa war xasaasiya suuqana mataqaanaa gilgili karaya. Marka maybe inuu correction geliyo maybe inuu suuqa bilaad dhaqaaq ka dhigo labadaba way dhici karaysaa. Euroda waxaa kasoo bixi doona lafteeduna waa iska un mataqaanaa rate-kii. Ka wiigan waxa ugu badan ee suuqa laga hadal hayn doona waxa way u badan yihiin waa rate-ka. Marka jimcaha oo maalinka u dambeysa warka tentative-ka baa jira oo ah isna kasoo bixi doona lacagta dollarka. Isna mataqaanaa waa price index-kii iyo employment core index-kii. Marka wararkaasi haddii ay soo baxaan waa tentative labadoodu haddaad u fiirsataan labaduna waa tentative. Hadday soo baxaan waa wiig wax dhaqaajin kara laakiin saameyntiisana wata oo suuqa suu doona u geli karaya. Marka inagoo taana arkayna badanaa inaan anigu taxliiliyo wararka oo idhaahdo okay lacag heblaayadu warkan wuxuu geenayaa buy kana sell buu geenayaa aniga shaqadayda maaha. Anigu wixii soo baxa uma report-ka soo baxa suuqa reaction ka bixiyay kadib baan trade-da ku salaynaa. Anigu inaan saadaaliyo oo idhaahdo lacag heblaayo buy baa la geenayaa sell baa la geenayaa marka la joogo newspaper soo baxo aniga shaqadayda maaha. Laakiin waa inaanu technical analyse-kayga aan ku fadhiisiya fundamental analyse-kayga. Haddaba wiigii dhaweytoole maxaynu ka filaynay suuqa maxaynu ka sugaynay maxay inay dhacaan baynu ka sugaynay. Wiigii dhaweytoole waxaynu calaamadaynay in fair value gap-kan mataqaanaa DXY-ga in fair value gap-kan laga celiyay baynu qorsheynay. Isniintii waatan waa la yimi price-keeni maxaa halkan laga galay correction saa'ida baa laga galay waxaana joognaa daily time frame-kii baan joogaa. Marka waxaad ujeedaa in correction halkan laga galay mataqaanaa arbacadii khamiistii iyo jimcihiiba saddexda cishana mataqaanaa ay isku dhex mulaaqmeen oo aad ujeedaan doji candles inay samaysay baba labada cisho u dambeysay ee axaddii labada cisho u dambeeyay khamiistii iyo jimcihii.
so maadaamaynu markaa taa arkayno maxaynu ka filaynaa haddaba wiigan. So markaynu joogno halkan waxaynu laba midba waan filan karnaa. laba mid waan filan karnaa in priceku fair value gapkan in ixtiraamo fair value gapka bartan ku jira, lianno maadaama previous daily lowgii iyo lowgii xagga laga xigaba la qaaday dan gudihiisa lagu xurmay, walow bimbaarba ha ahaadee in isniinta la sii wado oo ilaa iyo mataqaanaa areadan la target gareeyo. sidoo kalena waxaa ii bannaan in still lasii ixtiraamo mataqaanaa areadeedii fair value gapkaygii oo pricekeygii lasii wado. So markaa labaduba way ii furan yihiin. Weegan waa week iska consolidative ah buu ahaa weekii hore. So weegan ha ka saareen rajaynaa. So haddaynu eegno weekly candlekeeda, haddaynu eegno weekly candlekiisa waxaad arkaysaa in weekii dhoweytooyinka dhammaaday uu ahaa week aan labada dhinacba dhanna u jebin. Previous weekly haytoona qaadin, kii ka horreeyna la mid ahaa, laakiin keeni u dambeeyey inuu iska somehow uu ahaa consolidation candle. So marka weegan ku xiga insha allah waxaan rajaynaa in consolidationka laga saaro baynu insha allah ka rajaynaynaa horta dollarka. So markaynu dollarka ka baxno waxaynu isla eegi doonaa euro USD JPY USD. So euro USD JPY USD waxaad ujeedaa in laftoodana weegan ay kala xarka furteen. So weekii u dambeeyey euro USD waxay ku soconaysay bullish bay haysaan hore u saadaalinay, aynu hore u nidhi in lacagteenani ay bullish noqoto baynu rajaynaynaa way noqotay, laakiin JPY USD waxay sameynaysay bearish. So that means inay JPY ay ku xiratay xagga dollarka badan ay u awood badnayd oo dollarka badan aan la jiha ahayd. laakiin haddana waxay muddaa inay labadooduba weekan ay kala dhaqaaqeen, ay kala xarka furteen weekii u dambeeyey oo aysan wax price action oo isku mida aysan bixinayn. So marka euro USD weegan labadaba waan ka filaynaa. So horta continuation waan ka filaynaa oo pricekeygii, laano maadaama previous daily high laga qaaday banaankiisana lagu xidhmay. So waxaan ka rajaynaynaa in uu noqdo continuation oo kor lagu sii wado. JPY USD-na iyadana waxaan ka rajaynaynaa in iyaduna noqoto reversal oo hakasada u jirtaan previous daily lowgeedu way qaaday, kii khamiistii way qaaday, jimcii waa la qaaday. So gudihiisa lagu xidhmay. So that means weeka waxaan ka rajaynayaa horta iyaga inay noqdaan reversal mataqaanaa bullisha inay noqdaan baan rajaynaya insha allah. oo bullishka la igu sii wado baan ka rajaynayaa insha allah biidnillah. dhiga swaydana ay dhacdo mataqaanaa reversalkiisii. goldigaa yimid, goldigana maxaynu wiigii hore ka nidhi, maxaa ka qabsoomay wixii ay wiigii hore ka nidhi iyo maxaan ka qabsoon. So wiigii hore haddaad xasuutaan analyskii wiigii hore waxaan sheegay in aynu rajaynayno inaynu fair value gapkani ka raacno. isniintii waa kan ugu furmay, isniintii waa tan way furantay. So isniintii waxaa laynoo triggergaraynayay mataqaanaa previous daily high-ga. So lama sameyn, laakiin waxaa laynoo sameeyey equal highs. So still halkan waxaa ku jira fair value gapkaygii SMTDC-na le waan soo geliyay telegramkana. So haddana telegramka ku jirina linkiga hoose kaga soo bir, halkaasna wixii update kala soo geliya analysyadana analyse garaysay wax u dhaceen. marka still waxaan haystaa ID chance aan kusii buy garayn karo, lianna waxaa dhacday in previous daily lowgii lagu xidhmay kii soo dhacay salaasadii in mataqaanaa lowgiisa laga qaado hoosta lagu xidhmay. So still waxaan rajaynaya in kor lagu sii wado. kan wuxuu noqday bimbar, laakiin maalinka xigta waxay qaaday previous daily lowgii gudihiisa lagu xidhmay. So still waxaan rajaynaya in previous mataqaanaa daily highska laga qaado ama equal highs ama relative equal highskan in laga target gareeyo baan rajaynaya weekan. kaasi waka insha allah waxaan ku xigsiinaynaa indexka maxaan ka sugaynaa. So indexka horta intaynaan maxaan ka sugaynaa odhan wiigii hore maxaanu ka rajaynaynay. So wiigii hore wuxuu joogay price halkan uu marayay. So isniinta halkan ka furmay. So haddaad xasuutaan indexkana waxaan calaamadinay in targetkeena inoo ahaa in laynoo target gareeyo previous mataqaanaa equal highskan, equal highska in laynoo qaado oo liquidity inoo ahaaba qorsheenu ahaa waa laynoo qaaday. fair value gapkeena baa la yimi, and then pricekeygii wuxuu toos u qaaday all time highgii. So haddaad dib u xasuutaan mataqaanaa analyseyadan hore usoo gelino. So still waynu bullishkan kusii wadayna. weekana waxaan ka rajaynaya insha allah isna bullish kale baan ka rajaynaya. So eriyadan baa i calaamadsan in eriyadan la ii keenay baan rajaynaya insha allah. So in halkan la ii keeno and then la sii wado baan ka rajaynayaa. US 100ka still US 500ka la mid ama S&P 500kuna la mid. So iyaduna waxaan rabnaa inaynu halkan iyaduna kor uga sii raacno. haddii in case lasoo dhaafo ilama iyo mataqaanaa la keenayo
inversion fair value gap plus fair value gapkan in laynoo keeno uu pricekeygu soo dhaafo oo sorry inuu pricekeygu uu halkan soo jebiyo haddii incase bala soo jebiyo weyaan FVG-geygan in laynoo keeno inversionkan and then laynoo target gareeyo markaa previous daily high-ga kii jimcihii so intaasaan kusoo koobaya golli euro USD JPY USD iyo dollarkaba intan waan ka fargareeyey so intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh